arrintani maanta waxay tahay inaan kuu soo gudbinayno aan ku leenahay ogow oo xusuusnow inaad addoon ilaahay tahay, inaadan iloobin wixii lagu abuuray, inaadan iloobin maqsadka lagaa leeyahay, inaadan iloobin cidda keliyaha wax ku tari karta. abaar iyo mushkilad haddaad dareemayso, haddaad awlaad la'aan dareemayso, haddaad caafimaad la'aan dareemayso, haddaad maxaanku dhahdaayay masiibo iyo dulmi cid ka haystaa jiro, ilaahay inaad xasuusnatoodan iloobin weeye fariinta. saddex miaal baan ku siinaya. qisada koobaad waxaa lagu tilmaamaa ibnu abidunya kitaabuu leeyahay inuu ku wariyey isagoo zuhdiga ka warramaya iyo allabariga iyo cibaadada qofka muslimka ah. waxaa kaloo wariyey xasan albasri isagoo anas ibnu maalik ka wariyey nin ansaariya inuu ahaa nin ganacsada, lagu tilmaamay naasik iyo waric xalaal miirad inuu ahaa xilligii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. ninkaasi inuu maalin maalmaha ka mida isagoo safar doonaya soo maray tuulooyinka iyo magaalooyinka deegaanka bani aadamka ka mida oo dhinaca shaam inay ahayd lagu tilmaamay. ninkii waxa uu warsaday cid gaadiidleya oo uu kaashado oo uu weheshado oo dariiqa marisa. waxaa loo sheegay nin dadka ka kireeya fardo. ninkiibaa farda iyo gaadiid ka kireeyey. ninkaasoo tuug ahaa asalkiisa yaa markii waddadii dhexda la sii marayey wuxuu idhi waddadan inagu leex. waxa uu yidhi war waddadan haynagu leexina tanaa raadkiiyo dadka cagtoodu ka muuqataaya ina mari. wuxuu idhi may anugu tanaan aqaanoo tanaa dhowo tanaa toobiya ah. waddadii ayuu ku hormaray ninkii. dabeedna markii hawd halkaas ah iyo kaynaya dhul qariiba la dhex marayo iyo togog la maraayo yaa wuxuu tusay lafa dad badan oo dhintay. waxa uu ku yidhi intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay, waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiiggaagaba bannaysto. wuxuu ku yidhi maalka iska qaado, laakiin dhiiggayga ii badbaadi, awlaaddaydii iyo ehelkaygii aan u noqdo. hooyaday baa keligay dhashay. sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calaacalay. wuxuu ku yidhi inta aan dilayba hadal fiican way yidhaahdeen, qofnase kama maqal. waxa uu yidhi waxaan ku idhi war 4 ragcadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar haddaad i dilayso? markaasaa wuxuu yidhi waxaad tukataa intaad rabto. waxau idhi waxaan bilaabay salaad, waxaan isku dhex waday ducooyin iyo aayad qur'aan oo qalbigayga ku soo dhacaysay. aayadda qur'aankii waxay ahayd amman yujiibu almudara idaa dacaah wayakshifu asuu'a wayajcalukum khulafaa alard a ilaahum maca allah. aayaddaasaa qalbigayga ku soo noqnoqonaysay. ducaduna waxay ahayd yaa waduud yaa dulcarshi almajiid yaa facaalun lima yuriid. ducooyinkaas ayuu akhriyey. aqifnii yaa muqiitu aqifnii buu ku celceliyey. ducadaa markuu akhriyaayay ee uu rakacadihiisii ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayoo dhaqso ayuu lahaa. wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jalleecay oo dhinacaa fiiriyey, mise isagiina salaaddii intuu ka baxay buu fiiriyey. dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo togga dhinaca hoose ka soo socda, waran ololayana gacanta ku wata. ninkii ayaa ku dhuftay. markaasuu ninkii dilay. waa uu weydiiyeyoo wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaariyey yaa tahay? wuxuu yidhi anigu malag baanahay u xil saaran amman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu asuu'a wayajcalukum khulafaa alard. anigu dadka mudiriinta waddooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta, dadka alla waafajiya inay ilaahay u noqdaan, kuwaasaan anigu iska rabtaagaa buuri. dabeedna wuxuu idhi yaa muqiitu aqifnii markaad lahayd albaabka koowaad ee samadaa gariiray. markaasaa samadana lagu garaacayoon garaaceedii ka fadhii weynay buu yidhi. markaasaa aniga laysoo diray inaan adiga kuu kaalmeeyo. waa anigaa kuu kaalmeeyey buui miyaan orod yara mar haddaan intaa kugu soo ajiiboon kuugu imid.